بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسو دو كورسديني اونلاين كا maanta waxaan baranaa duu leeyahay maadada loo yaqaan strengths of material. Strength of material maadadani waa subject aad muhiim u ah, especially civil engineering. If you are civil engineering, you have to know this subject well. Strength of material marka chapterskiisu way badan yihiin ilaa 7 chapters way ka kooban tahay. Bal chapterkan koowaad haddii aanu imano wuxuu baranayna waxa loo yaqaano stress and strain. labadan eray oo aad muhiim u ah. hadda maanta waxaan xooga saaraynaa erayga loo yaqaano stress. marka stress oo maxaa tahay? Stress af Soomaali maxaa lagu dhahaa? Stress wax kala ma xaq wax ku qoran waa stress. Stress maxaa tahay? af Soomaali stress waxaa la dhahaa shaygan resistance-ga ama waxa ku imanaya caabiga culays, pressure af Soomaali cadaadis ayaa stress la dhahaa. cadaadis in Soomaali cadaadiskan maxaa keena? cadaadiska intaadan definition-kiisa qeexin maxaa keena? waxaa keenaad iyo jeer load waa waxa meesha ku dhacaya culayska uu yahay. load kaasoo noqon kara external load waa loadka dibadda ka imanaya. external load kaas ayaa wuxuu cause gareeyaa ereyga loo yaqaano deformation. when you are an engineer or especially civil engineer or structure iyo waxa ka shaqeynayso, structure-kaagu inuu deformation noqdo ayaad had iyo jeer ka taxadari. ereyga deformation waa maxay? shaygu inuu qaabkiisii bedelo. tusaale yaro gaaban, qalinkan xaggan haddaan ka hayo xaggana ka hayo, loodka halkaa kaga dhaca calaamadii markaa bending uu sameynaya uu isbedelaya. that's called deformation ayaa la dhahaa. deformation-ka markaa si looga hortago loodkan ka sababaya. marka deformation-ku wuxuu qaybsan doonaa laba shay, elastic deformation iyo plastic deformation. marka maanta inagu deformation-kan kaliya xooga ma saarayna, laakiin ujeedada aanu soconay ayaa load markaan ogaano ee loadku wuxuu sababay inuu deformation yahay ayaa waxaan u baahanahay stress ay maxaa tahay. stresskii ayaan markaa u laabanaa. marka deformation-kuna waa elastic, shaygu inuu elastic noqdo, iyo plastic deformation way sii qaybi doomi doonaan. in detail baan u baran doonaa, laakiin ereyga stress aan xooga saarayna fahan maxaa sababa, muxuuse yahay. haddaan halkan u imaado diagram-kan yar, waxaan waa section. tusaalaan beam yar baan sawiray. beamka yaraan sawiray xaggan force baa kaga dhacaya. calaamadan bid wax kale ma waa force, dhankanna force baa kaga yaala. shaygan section baan ku sameeyay uu kala jabay, veeraas ku kala go'ay. kabacdi markuu kala go'ay waxaan yari waa force-yada xaggan bowling garaynaya ee xajinaya, dhanka kanla bowling labada shay waxa isku soo xajinaya. force-ga dhanka imanaya kan ka imanaya. for that case section-kan markaan ka sameeyay summation forces at resultantigan bowling-ga ku imanaya, waxaan yar waxa loo yaqaanaa internal forces-ka. marka stress had iyo jeer hadda waxa la dhahaa summation of internal forces-kan, force-yadan la isku daray resultantiga ka soo baxa oo loo qaybiyay area oo ka dhigan in shortly waa b by a. had iyo jeer buugta b by a baad ku qoran, laakiin inta equilibrium-kan dhan marka laga soo calculate gareeyo ayaa markaa formuladana ku soo baxay. this is the way formula that we can be defined by b by a. now in a simple way, and definition of stress waxaan dhihi karnaa waa internal resistance force. internal resistance force-gan ayaa waxaan dhihi karnaa ereyga loo qeexo stress oo af Soomaali loo yaqaano cadaadiskan markaad ereygan fahantid, muhiimada loo socdo ayaa ah structure-kaaga had iyo jeer all period-ka ama subject-gani waxay xooga saartaa stresska. waayo stress-kan markuu loadku ku dhaco deformation bay noqonaysaa. baan ereygan deformation-na marka structure-kii lagaagama baahno. for that case force over area ayaad buugta ku arki doontaa buugta, laakiin definition-ka ama equilibrium static-kana laga soo dhiraandhiriyo oo sidan u qoran. kabacdi unit bay leedahay. unit-keedu had iyo jeer waa newton weeyaan, area-dana meter square baa lagu cabiraa. for that case the SI unit of the stress waa newton per meter square. cashirkani waa cashirkii koowaad ama introduction-kii maadada loo yaqaano strength of material. haddii aad civil engineer tahay si fiican u daawo videogan, xoogana saar subject-gani way kaa caawin doontaa ilaa structural 1, structure 2, RCC 1, RCC 2 subject-gu saasay usii socon doontaa. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبسكرايب يسا شير تنصار أنا encouragement بين نوتاي. عشركم أنت هلكا ينوجو دونا عشر كدنبي كحيجة وان سيوة دونا دولا يرادو، لكن this scholar only introduction يا وحى stress أي تهاي إنكستون استرين شرح، لكن stress كان حوج زاري ما أنت